laga hortago isla markaana lagula xisaabtamo cid walba oo ka shaqeynaysa caqabada dalkan in si buuxda looga hortago. iyadoo ay taasi jirto haddana waxaa sii kordhay saameynta gobolka ee loogu jiro wax ka qabashada dhibaatooyinka iyo caqabadaha ku horgudban dalkan, taasina muhiim ay u ahayd xaaladda waddanka. dhinacyada ayaa sidoo kale waxay fahamsanayeen inay muhiim u tahay dalka iyo dowladnimada in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortagayo caqabadaha dalka ka jira. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay fahamsanayeen in la joogo xilligii wax laga qaba lahay dhibaatooyinka ku horgudban dalkan, taasina muhiim ayay u tahay xaaladda waddanka. waxaa sidoo kale soo degdegay shaqooyinka laga qabanayo dhanka dhibaatooyinka dalkani horyaala. waxaa sidoo kale lasoo kordhiyey tallaabooyin iyo habab cusub oo lagu xakameynayo dhibaatooyinka dalka ka jira, isla markaana looga fakarayo sida ugu suurtagalsan ee dhinacyadu ay fahmi karaan ammaanka dalkan. gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa taliyaasha wuxuu si cad ugu sheegay in la gaaray waqtiga wax laga qaban lahaa dhibaatooyinka, isla markaana maamulka gobolka banaadir uusan aqbali karin in magaalada caasimadda la burburiyo. kaabayaasha dhaqaalaha inay caqabad ku tahay ayaa sidoo kale maamulka gobolka banaadir sheegay, waxaana warbaahinta la hadlay afhayeenka booliska gobolka banaadir Saalax Dheere oo si cad u sheegay in banaanbaxa cidda abaabulaysa ay gacan bira ku qaban doonaan, isla markaana sharciga la horkeeni doono si wax looga weydiiyo burburinta dalkan sababta uga shaqeynayaan. iyadoo ay taasi jirto haddana waxaa sii muuqanaya inaan waxba laga qaban dhibaatooyinka socda ee dalka ka taagan oo ay ugu horeeyaan rabshadaha iyo sidoo kale caqabadaha ku horgudban dowladnimada. waxaana qayb ka ah in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu qaatay go-aan degdega ka oo lagu xakameynayo dhib kasta oo ka dhici karay dalkan. waxaana madaxweynuhu soo jeediyey in tallaabo laga qaado cid walba oo loo arko inay dalkan horumarkiisa ka xun tahay, isla markaana ay gadaal u dhigayso shaqooyinka dowliga. waa inaan la xisaabtanaa kuwa rabshadaha wada